Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Qaybteena hore waxay noogu joogtay iyagoo ciidankii Maxamed Khawaarsi hubkoodii ku wareejiyay Tataarkii. Qaybteena maantuna waxay ka bilaabmaysaa kadib Jenghis Khan markii uu ka qaaday seefihii dhammaantood uu laayay xaqoodiina uu mariyay maadaama ay difaaci kari waayeen diintoodii, dalkoodii iyo dadkoodiiba. Kadib waxay galeen Tataarkii magaaladii Samarqande ee jannada ahayd waxayna ku sameeyeen wixii ay ku sameeyeen Bukhaara. Waxay laayeen raggii, dumarkii iyo carruurtiiba. waxay bilaqaysteen dhammaan wixii maal adduun dhex yaallay. waxay faraxumeeyeen dumarkii dhowrsanaa. waxay dadkii ku cadaabeen cadaabo kala duwan. waxaa dadka lagu cadaabaya waa soo saara dahabkiinni. waxay addoonsadeen carruur iyo dumar tiro badan. qofkii aan addoonsi galayn ee gaboobay ama daciifayna way dilayeen. way gubeen magaaladii waxayna ka baxeen iyadoo kharaaba. waxaasoo dhan waa laga maqlayay daafaha caalamka muslimka ah. dhaqaaq yarna ma samayn. wax kaleba marka laga yimaado xitaa iskuma diyaarin umana midoobin la dagaalanka Tataarka. waa waxa maanta haysta muslimiinta Falastiin, Ciraaq, Suuriya iyo Yemen ee sidii la doono loo geliyay mid u soo dhaqaaqayana aanu ku jirin caalamka muslimka. nin kasta oo maanta nool ha u diyaar garoobo taa iyo kuwo ka daran oo taariikhda ku cusub. walaasha iyo gabadhaadana marka hortaada lagu faraxumeeyo ee aad ka hadli kari weydo ayaad garanaysaa macnaha ay leedahay dowladnimo iyo in diinta Ilaahay la isku xukumo. aanu noqono muslimiintii waqtigaa noolaayo waxay dayaceen maalkoodii, diintoodii iyo naftoodiiba. iyadoo waxaasoo dhan ku dhaceen haddana intii hadhima midoobin. wuxuu xukumayay mid kastaa waddan yar uu calan u samaystay uuna u maleeyay inuu barwaaqo ku jiro mar haddaan gobolkiisa yar iyo xuduuddiisa aanu dagaal ka socon. wuxuu degay Jenghis Khan magaaladii Samarqanda wuxuuna la yaabay ballaarnideeda iyo quruxdeeda aanu weligii wax lamida hore waaray. wuxuu ku fikiray Jenghis Khan inuu dilo boqorkii magaaladan uu qabsaday si uu xalaashado qabsashada dalkan isagoon cidna ka baqayn. wuxuu diyaariyay 20,000 oo ciidan ah si ay usoo qabtaan Maxamed Khawaarsi. boqor xukumayay waddanka intan leeg in loo diro 20,000 oo ciidan ah waayo sida halkii u hoosiisay. waxay dhex qaadayeen malaayiin muslimiin ah 20,000 ee Tataarka ah. waxaynu arki doonaa waxay sameeyeen 20,000 ee askari. wuxuu ku yidhi Jenghis Khan wada raadinaysaan Maxamed Khawaarsi ana ka hadhina xitaa hadduu galo samada. waxay aadeen ciidankii Tataarku magaaladii Orjanda halkaas oo uu deganaa Maxamed Khawaarsi. waa magaalo ku taalla xeebta galbeed ee webiga Jayxuun. waxay ciidankiisa soo taageen webiga dhinaciisa bari waxaana u dhexeeyay iyaga iyo Maxamed webiga. way is dhigteen muslimiintii iyagoo isla webiga cidna kama soo gudbi karto. Tataarna hadalkooda badda oo doonyo ma leh. maxay sameeyeen Tataarkii? waxay soo ururiyeen looxyo kadibna waxay huwiyeen harag lo'aad si aan biyuhu ugu soo gelin. waxay dhex dhigteen looxaantaas hubkoodii, heensihii, fardaha, cuntadoodii iyo dhammaan qalabkoodii. fardihii oo ay ku reeran yihiin alaabtaas ayay webiga ku rideen. farduuna waxay ka mid yihiin xayawaanka kuwa dabaasha. intaa kadib Tataarku waxay dabada soo qabsadeen alaabtii ay farduhu la dabaalanayeen sidaasina webigii kaga soo dhammaadeen. haddaynu halkaa wax yar falanqayno muslimiintu way awoodeen inay dusha kala socdaan ciidanka Tataarka haddii is dhahaan soo gudba iyo hadday iska noqdaanba. haddii ay arkaan inay soo gudbayaan waxay awoodeen inay u dhuntaan Tataarka. markay webiga isku soo guraanna ay kusoo yaacaan oo ay warmo iyo fallaadho la dhacaan kuna dhex laayaan webiga. laakiin nasiib darro waxaasoo dhan qaafliin bay ka ahaayeen. waddadaas ayay kaga gudbeen ciidankii Tataarku webigii Jayxuun. ma garanayo meesha ay jireen sirdoonkii Maxamed Khawaarsi. si lama filaan ah ayay Tataarkii mudug u soo yidhaahdeen muslimiintii. waxay is arkeen muslimiintii iyadoo ciidankii Tataarku ku wareegsan yihiin. tirada muslimiintu malaayiin bay ahayd laakiin qalbiyadooda waxaa ka buuxsamay cabsida Tataarka. cabsida intaa leeg Ilaahay mooye cid kale uma qalanto. manay filayn muslimiintu kadiiskan oo waxay islahaayeen idinkiiyo Tataar waxaa idii dhexeeya webigan. iminkase waxaa halkan taagan waa dugaagii Tataarka ahaa. waddo kale uma bannaana aan ka ahayn inay la dagaalamaan. maanta oo kalena carar waxba ma taro. laakiin muxuu sameeyey Maxamed Khawaarsi? wuu cararay isagoon heleelin inuu kaxaysto cid ehelkiisa ka mid a. talow maxay tahay fulinimada heerkan gaadhay? balaadba garo. wuxuu u cararay xagga iyo Niisaabuur. iminkan waxay ka mid tahay Iiraan. askartiisii baa soo hadhay. mid waliba wuxuu cararay halkii madaxiisa ku beegmay. balse Tataarku hadafkooda waxa ay soo qabteen Maxamed Khawaarsi. sidaa darteed waxay iskaga baxeen Orjanda iyagoo u jeestay Niisaabuur. ku darso intii ay sii socdeen waxay dhex muquuranayeen ummadihii islaamka ahaa. Jenghis Khan wuxuu iska fadhiyaa Samarqanda. way awoodayeen muslimiintu inay hareereeyaan 20,000 intaa kadibna ay birta ka aslaan. Jenghis Khanna ay ku goodoomiyaan Samarqanda. laakiin waa ummad qalbigeedii cabsi ka buuxsantay, carar mooyaan caga kale lahayn. waxay isla dhex mari jireen. meeshay Tataarku galaan way halaagaan. magaalooyinka waa loo badneeyaa, guryahana waa looga cararaa. markaasaa mid walba qalbigiisa cabsi ka buuxsantay. markan Tataarku deegaanada ay marayaan wax dhac iyo boob ah kama geysanayaan. sababtuna waa inay hadaf kale u socdaan. markaa ma doonayeen inay waqti iskaga lumiyaan dhac, dil iyo xoolo urursi. waxay doonayeen soo qabashada madaxweyne muslim ah. dhinaca kale dadka ay dhex marayeen wax dhibaato ah kagama imanayno. sidaa darteed waxay soo gaadheen meel u dhow Niisaabuur waqti aad u yar oo aanay u suuro gelin Maxamed Khawaarsi inuu ciidan ku urursado. markuu ogaaday Maxamed Khawaarsi inay Tataar ku soo dhow yihiin ka baxay Niisaabuur wuxuuna cararay magaalo kale oo lagu magacaabo Masandara
markii tataarku ka war heleen umabay leexan Nisaabuur ee toos ay u soo abaareen magaaladan uu cararay. Wuxuu ka baxay Masandara wuxuuna u cararay magaalada Rey wuxuuna uga sii baxay magaalada Hamadaan oo labaduba Iiraan ah. Tataarna kama hadhin way ku raad joogaan. Ma sii fadhiyin ee haddana wuxuu ku soo noqday Masandara. Waa carar baahtiyan oo laga xishooday in hogaamiye muslim ah ay sameeyo. Kadib wuxuu aaday gobolka Dibristaan dhinaca xeebta badda oo la yiraahdo Khasar. halkaas oo uu ka helay doon wuxuuna sameeyay caadadiisa cararka. Wuxuu cararkii iyo daftaftii ku galay jasiirad lagu magacaabo Qaswiin. halkaas ayuu tegay isagoo ku raalli ah nolosha qaxarka iyo qarbada ah. nolosha adag buu iskaga noolaaday boqorkii weynaa ee Khawaarzim. waa madaxweyne xukumi jiray dowlad ballaaran, haystiina xoolo iyo lacag tiro beeshay. laakiin sidan ayuu ku raalli noqday si uu uga cararo geerida. wax yar uun kadib halkaas buu ku geeriyooday. wuxuuna ku dhintay jasiiradda ayaamo yar uun kadib markii uu ku noolaa. wuxuu geeriyooday isagoo leeriyanayo weliba faqiira. meeyey maalkii iyo xoolihii badnaa, meeday boqornimadii? ma jirto. waxaa la waayey wax lagu kafmo, waxaana lagu kafmay faraashkii uu ku hortay. nin kasta oo dagaal u diyaargaroobi waayana sidaas u dambaysa. qofku ma doorto meesha uu ku geeriyoon doono, laakiin wuxuu awoodaa inuu doorto sida uu dhiman doono. geeridu ma gaabiso cimriga sidaanay fulinimada iyo cararku cimriga u dheerayn. qofkii ku noolaada geesinimo wuxuu ku dhintaa geesinimo isagoo shahiid ah, xitaa hadduu ku dhinto faraashkiisa. waxaa nabiga laga soo wariyey calayhi salaatu wassalaam, qofkii ilaahay weydiista shahaado dhab ah, ilaahay wuxuu gaadhsiiyey darajada shahaadada hadduu doono faraashkiisa baa ku dhintee. bal haddaba aan yaro milicsano taariikh nololeedka Maxamed Khawaarzim iyo qofnimadiisa, waxaynu arki doonaa arrin yaab badan. markaad akhriso taariikhdiisa waxaad arkaysaa imaam weyn oo ka mid ah culimmadii muslimiinta. markaad aragto cararkiisa, jabkii uu muslimiinta jabiyey iyo noloshiisu sidai ku gabagabowday, waxaa kuu muuqanaya wax ka duwan wixii hore. haddaba maxay tahay sirta ku duugan nolosha ninkan? waxay xuduudda dhulkiisu ka bilaabmaysay Ciraaq, waxay maraysay Turkmenistaan, qaybo ka mid ah Afghanistaan, Hindiya, Karmaan, Bakistaan, Dubristaan, Jarjaan, Faris iyo dhulalka buuraha ah ee Khuraasaan. waxaa ku caddaatay in mulkigiisu aad u weynaa uuna ka talinaya dhul ballaaran. nasiibkiisuna soo gacan geliyay dhulkan, muddo badanna uu xukumayay. waxaa kaloo u ahaa nin u samra dhibaatada, necab macmacaanka adduunyada iyo raaxada. fikirkiisu waxaa amaaraynta mulkigiisa, baahidiisa iyo beylahdiisaba. marka aynu eegno shakhsiyaddiisa, wuxuu ahaa caalim aftahan ah, karaameeyo culimmada cilmiga, soona dhoweeya dadka cilmiga leh. dadka diinta lehina agtiisa uu ku weynaayay wuuna qaabili jiray. waa taariikhdii Maxamed Khawaarzim. jahwareerna way ku ridaysaa ciddii akhrida taariikhdiisan wejiyada badan. wuxuu ahaa Maxamed Khawaarzim mid dowladda oo dhan xukuma, cid kalena aan waxba uga ogolayn, ama waxaynu odhan karnaa wuxuu ahaa dictator. isla markaana qof kasta oo madax ah u xukumaya gobol yar oo gaara, intuu dilo ayuu dowladdiisa kusoo dari jiray si uu keligii boqor u noqdo. taasna waxay sababtay markii ay tataarku eryanayeen inuu waayo cid wax ka celisa ama difaacda. qodobkaasi wuxuu caddaynaya dhibaatada iyo mashaakilka dhex yaallay muslimiintii waqtigaa. wuxuu ahaa Maxamed Khawaarzim mid naftiisa u fiican, laakiin wuxuu jaray dhammaan xidhiidhka ula lahaa maamulada deriska la ah. wuxuu ahaa mid dagaalo la gala dowladaha la deriska ah laayana madaxdooda. dadkii madaxdooda la laayayna wayba ku farxayeen jabkiisa, xaasidnimo ay u qabeen darteed. taasina waa mid ka maran xikmad. halka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka uu dal qabsado uu deyn jiray madaxdii ka talin jirtay, aadna way u jeclaayeen iyagoo og inuu dalkooda furtay, sababtuna waa inuu ku liido kusmaamula. Maxamed Khawaarzimna uu ku guuldaraystay inuu dhiso maamul iyo jacayl wada socda. boqornimadiisa wuxuu ku keenay awooddiisa, dadkana jacayl ma gashan. waa ka markuu usoo baahday waayey cid u soo dhaqaaqda. waana sirta ka dambaysa boqorka inuu ku dhinto jasiirad yar oo cidla ah, isagoo haysta dhul ballaaran iyo ciidan baaxad leh. maxay sameeyeen tataarku markay arkeen in Maxamed Khawaarzim cararay?